بسم الله الرحمن الرحيم دمان ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto xukuumadeena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudan ahna duqa magaalada iyo dhammaan ku xigeenadiisa waxaan u sheegaynaa mudan gudoomiye dhulkan arkaysiin waa dhul taariikhi ah meeshaan meel goob ah ma aha goob xamar weynane ما بحين كرت عندنا ما بحين كرت ماشان طول كان تاريخ ذي زمر كاينين شغله مال دكس القرآن وأهنجر وعدان هذا وذيك راس الدفاع إسكليه طول كان هيستوري التاريخ ذي زهدي جوجل كلا حتى ولا أركا هواي غير الله سيو محلها أمباسطور ترسل أيا طول كان إنه كل كيس إيماني والشيخ شريف في مركز رئيس الوزراء وحا محمد عبد الله فرماج وعدي إنه سنقول كان قفنا قادن كرن قفنا استعمالي كرن قفنا أنا كنت أقرفلي كرن ودومي أقول كبنادر وحن كعو سنينا هدان هنا الشعب كغير بنادر وقدومي آدي هذا نقوه لنا وأنجعلنا إن أسود هذا الكلام إن مدن قدومي ظلم كهل كان كجرو haddii la rabo in wadankan xal laga gaaro haddii la rabo in wadankan horumar iyo barwaaqo laga helo ogaada qof maskiina ee jiisa oo curyaan ah ee aan socon karin ninkii damco ee ku damca weli inuu ku shaati dawladeed wax ku dhaco horta ogaada shacabkan reer Banaadir hal way ka wada simantahay waxay ka wada simantahay gurigooda iyo naagtooda cidii faraha soo geliso way ka wada simantahay inay ku dhintaan waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad madaxweynaha dalka ra'iisul wasaare Khayre gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ogahay in arintan aadan ka warqabin laakiin in arintan foojignaan dheeraad aad u fiirsan dhulkan ma aha dhul ama Cali Mahdi bixin karo ama Maxamed Dheere bixin karo xamar weyn ku yaala goof ma aha meeshan waxa la bixiyaa jasiire iyo meelaha duurka la bixiyaa xamar weyn lama bixiyo xamar weyn macnaheedu waxa waa guryaha idin kugu imaanayna aan ka qaadanayna ciidan ka yeelayna mare waxaan u sheegaynaa qodobka gudoomiye waxa tahay gudoomiye aan u helana mar labaad iyo mar saddexaad dadkan masaakiinta ah hantidooda in la badbaadiyo loo baahan yahay hantidooda waxa loo baahan yahay in la asturo annaga waxaan rabnaa maadaama aan dawladii aanan ka soo horjeedin dawladii aan jecelnahay dawladii aan la shaqeeyno haddana ma ogolaanayno qof bini aadan ah inuu dulum nagula dhaqmo dhulkan ninkan hadduu soo rogaal celi waa dareemaa inuu ka faa'iideysanayo inta ay mashquulsan tahay xukuumadda mashquulkeeda waa wuxuu ka faa'iideysanayo laakiin dabaal waay hal laga xataa ma soo dhigi kara meesha hawrtiisana kuma dhacdo laakiin intuusan buuq ka imaanin ama foodo aysan ka imaanin inay dawladda dhaqsi soo faragelisa arrinkan aan ka codsanaynaa billahi tawfiiq